waxaan weydiin lahaa sheekha waxaan gadaa dahab qayb dadka ka mid ah waxay iga iibsadaan deen ahaan laakiin dahabka aniga ayaan haynaya ilaa inta ay lacagta soo dhammaystirayaan dadka qaarkiis waxay iga qaataan kaash ahaan sidaas awgeed qofka hal mar lacagta i siinaya oo hal mar si fudud iga qaadanaya dahabka ma ka dhimi karaa qiimaha dahabka halkii garaam taasoo ka yar qiimaha aan ku siiyey qofkii deynta aan ku siiyey dahabka alxamdulilah horta su-aashan aad akhriday waa laba su-aalood hal su-aala maaha qaybta koowaad ee deyn baan ku gadaa dahabku sax maaha wax heshiis iyo beecoo guntamayana ma jiro iyadoon lacagta la kala qaadanin heshiiskiinaas heshiis saxa maaha heshiis khalada waaye anaa haynaya lacagtii bayna soo gurayaan yadan biyadin weeye dahab iyo lacag la isku gadayo waa jinsiga afmaanta iyo lacagaha qiimihii la rabaa lagu kala gadi karaa laakiin idaa kaana yadan biyadin weeye saa darteed wax beeco xidhmay iyo wax beeco asaxay midna ma jiraan maalinkay lacagteedu dhammaystirantaad caqdi iyo heshiis cusub u baahantihiin inta ka horeysa iyadana lacagteeday la noqon kartaa qofka wuu la noqon karaa adiguna alaabtaada ma gadno way iibsami kartaa wixii aan aqoon la-aan idiin geyninna caqdi heshiis saas inaad gashaan qalad wey su-aasha qaybta labaad ee u malaynaya qofka saa'ilkii su-aashiisu inay ahayd ujeedadeedu qaybna deyn baa lagaga gadaa qaybna kaash baa lagaga gataa qiimo kala duwan ma ku gadi karaa jawaabtu waa haa jawaabtu waa haa haddii jinsiga ribo ahaan laga eegana nabigu wuxuu yidhi fida ikhtalafat alajnaasu fabiicuu kayfa shitum saa doontaan u gada midna qaali ka dhig midna rakhiis ka dhig hadba maalin walba qofka meeshaad ka heshiisaan wey haddii laga hadlayo labada beece iyo caqdiya isgarab yaallana iyadana waxaa weeye midun baad ku heshiinaysaan inta kale gorgortan waaye saa darteed waana waxa beecu taqsiidka iyo beecyadan hadda luqadahan kale installmentiga loo bixiyo loo yaqaano yarayarti iyo dhammaantood dhibaato ma laha haddii la yidhahda beeca labadaa kala dooro oo midkii kaashka uu ku qaato ama ka deyntoo ka yar qaalisan uu ku qaataay wixii beeca deyn lagu gada ay bannaan tahay dhibaato ma laha wabilaahi towfiiq